بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معهد جراند أونلاين أكاديمي لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. أنا معلم اللغة العربية في معهد جراند أونلاين أكاديمي، اسمي عمر عبد عمر. السلام عليكم. هلكان ومعهدك جراند أونلاين أكاديمي وحنا معلك اللغة العربية جراند أونلاين أكاديمي. waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan ardayda iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo cid kastoo danaynaysa barashada luqadda Carabiga inaanu bilownay galaasyo bilow oo lagu baran doono insha Allah bilowga luqadda Carabiga. Galaasna waxay noo socon doonaan muddo 2 bilood ah. Ardaygu galaaskan waxa uu ku dhex baran doonaa insha Allah qaabka luqadda Carabiga loo qoro, qaabka loo akhriyo iyo qaabka loogu dhawaaqo. Wax badan baa la fahansiin doonaa ardayga. Wax kasta kale oo insha Allah uu sheegaynaa oo nagu sharaxi doona insha Allah galaaskan dhexdiisa markuu buuga bilaabayo in luqadda Carabiga uu koobantay 28 xaraf laga bilaabo alif ilaa ya. waxa uu raaci doona qaabka xurufta isku xidhmaan, shaqalada. Awood ardaygu wuxuu yeelan doonaa markuu galaaskan uu dhameeyo inuu luqadda Carabiga si yar oo fudud u akhriyi karo una qori karo. luqadda Carabiga qayb weyn oo muhiim ah waxay ka mid tahay diinteena. marka salaada tukanaysa tahiyaadkii baad akhriyaysaa, faatixadii baad akhriyaysaa, quraankii ayaa luqadda Carabiga ku soo degay. marka ardayga waxa laga doonayaa insha Allah inuu luqadda Carabiga kor u qaado insha Allah. galaaskan yuu ku habboon yahay. galaaskan wuxuu ku habboon yahay qof kasta oo raba inuu bilaabo luqadda Carabiga ayaa insha Allah bilaawi doona. marka ardayga waxa la bari doona insha Allah qaabka loo qoro iyo qaabka loo akhriyo. ardaygu waxa uu ku baran doonaa habka ka muuqata fiidiyowgan imika in hor yaal. Assalaamu calaykum dhammaan ardayda qaaliga. waxaan dhigan doonaa casharkeena koobaad 28 xaraf ee koobantay luqadda Carabiga. marka luqadda Carabiga guud ahaan gebigeeduba waxay ka koobantay kelmad kasta oo 28 xaraf laga bilaabo alif ilaa ya. marka waynu bilaabaynaa alif ba ta tha jim ha kha ديل ضال را وزاء صين شين وصاد ضاد ضاء. markaanu aragnay baahida loo qabo in ardayga laga dhiso bilowga luqadda Carabiga waxaanu sameynay oo qornay kitaabkan la yiraahdo asaasiyaat alqira'a wal kitaaba fi luqa al-arabiyya. ardayga basic luqadda Carabiga ayaa laga dhisi doonaa muddo 2 bilood oo socon doona kitaabkaasi. wax badan oo ka faa'iideysan doona ardaygu. waxa uu ku dhigan doonaa galaaskan dhexdiisa casharka hab maqal iyo muuqaal. macallinkii toos buu arkayaa, su'aashu doono weydiin karaa, macallinkuna uu soo jawaabaya. kitaabkan aan dhigaynaa amba buuggan aan qoraynaa dhigaynaa galaaskan dhexdiisa waxa weeye waa buug waqti badan aanu gelinay aanu ka soo fikirnay. marka ardayga faa'iido fara badan ayuu leeyahay ardayga bilaabaya luqadda Carabiga. waxaanu ardayga looga bilaabayaa markuu luqadda Carabiga bilaabayo waa 28 xaraf ee luqadda Carabiga la fahansiinayo marka koobaad laga bilaabo xarafka alif ilaa xarafka ya. markuu intaa si wanaagsan u fahmo waxa ugu xigaysa bal qaabkeebay isku xidhmaan, qaabkeebay u qormaan, xuruftu qaabkeebay isku xidhmaan. intaa marka la fahansiiyo waxa ugu sii xigaya shaqalada luqadda Carabiga oo waxa way fatxa iyo kasra iyo dhamma. markuu intaa fahmo xurufaha luqadda Carabiga ee la jiido ee marka la dhawaaqayo intaa markuu fahmo kadib ardaygu awood wuxuu yeelan doonaa markuu galaaska dhameysto inuu Carabi kasta oo ka soo horbaxa si yar oo fudud u akhriyi karo. waxa uu sheegayana uu garan karo akhriskiisa, akhriska iyo qoraalka uu si wanaagsan u qori karo, kelmad kasta oo loo yeedhiyana uu qori karo. ardaygu waxa uu dhigan doonaa galaaskan dhexdiisa casharadiisa oo loo soo diri doonaa casharka 7 subaxnimo 5 maalmood wiiga laga bilaabo maalinta Sabtida ilaa maalinta Arbacada. waxaanu ardaygu wax ku dhigan doonaa programka la yiraahdo Telegram. ardaygu markuu soo gaadho bartamaha buugga bil soo dhiganayay waxa laga qaadi doonaa imtixaanka ardayga loogu talagalay inuu qiimeeyo oo ogaado bil casharaantii loo soo dhigay qaabkeebu u fahmay maxaa ku kordhay. ardaygu si uu isku ogaado oo aanu isku dhigan imtixaankii bartamaha buugga ayuu geli doonaa. ardaygu galaaskan dhexdiisa waxa la fahansiin doonaa oo xoog la saari doonaa oo loo sheegi doonaa maskaxdiisa in luqadda Carabiga guud ahaan gebigeeda kelmad kasta buug kasta oo qoran quraanka kariimka axaadiista buug kasta oo qoran ilaa quraanka kitaabka quraanka Ilaahay soo dejiyay wuxuu ka kooban yahay waa 28 xaraf laga bilaabo xarafka alif ilaa ya. intaas uu ka kooban tahay intaas la isdaba baranaya la kala horreysiinaya lagu dhawaaqaya
shaqala la raacinaya marka ardayga marka intaa la fahansiiyo ardayga wuxuu awood u yeelan doonaa xataa insha Allah wax kastoo ka soo horbaxo luqadda carabiga inuu akhriyi karo hadduu dadaalo haddaba cid kasta oo jecel inay isdiiwaan gelayso amba kooraskeena galaaskan ay bilowdo bilowga luqadda carabiga wuxuu nagala soo xiriiri doonaa nambaraanta ku qoran shaashada hoosteeda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.